horta bilkulliya anigu waxaan ahay qof 80 jira iyo ka badan rajana kama qabo inaan joogo carar baan ku jiray xaggaan u socdaa naftayda la cararaya dadkii yimidna kuma faa'iidin meesha tan rag iyo dumar waa lagu jabay maxaa yeelay ilmaha baa fayuusharkii iyo ilmihii markii la waayeyna wax ku yaali ma jirto markii ana halkaan aanu nimid waxaana loo samayn jiray dhowr meelood dhowr maalmood markii la jabo waxaana loo sameeyay workshop bana loo sameeyay ilmahaanu ka hadli jirnay naag baa soo baxday waxay tiri ilmahan aad ku waalateen saad wax u dhasheen baanu u dhalay ilmaha saa u jeceshiin baanu u jecelahay waxaan ku kala duwanahay idinku ilmaha ayeeyaad u dhiibataan habaryar baa u dhiibataan eedaa u dhiibataan adeer abti annagu baarantiga haystay tiri annaga labada iska dhashay baa ilmahooda haysta ilmaha iyaga ma aanu lama rabno inay noqdaan lebsika ma karo kuwa lebsika ah iyo kuwa gayga ah iyo waxay tiri waxaa noo keenay telefishinkaa noo keenay telefishinkaani intuu socdo wax soconayaa ma jiraan bay tiri dadka dhan saasuu u baabayahay idinku iyo annagu isku mid baanuna hadda soomaalida waxaan ku waaninayaa qofkii ilaah yaqaan oo ashahaadanayaa inuu ilmihiisa wixii u haray oo kala tago oo waddankiisii la aado kii haatan guursanayaana markuu guursanaya inuu xagga ka guursadaa oo halka kan hadduu shaqo ka helaya uu ka shaqeeya hadduusan xagga shaqo ka helaynin oo ilmihiisa ku masruuftaa intii 20 sanana waa khasaare hal ilmaahi nooma harin wiilashii meel kale u guureen oo idinku aydaan ogeyn oo wiilasha ka hadli maysaan dhan toonkaa loo guuray oo aan wada goobjoog ka wada arkay soo wada ogaaday haddaad ogtiin haddaydan ogeyn waxaan ku leeyahay gabdhahana haba sheegin gabadhii soo baxda oo iskoolka dhamay secondary hooyadeeday ka guurtaa guri bay kiraysataa gabar hooyadeed ka guursatay maxaa ka guurtay oo guri kiraysatay maxaa laga rabaa ay noo qabanaysaa ilmuhuna ma soo socdaan wax laga gaarayaana ma jirto meeshaan dhaqan iyo nolol ma taalo qofkii xishoonaya kii ilaah yaqaan ha ka carareen ubadkoodana ha ka rarteen